الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلهي سبحانه وتعالى أيام مهد له دائما وأبدا، والحمد لله فرصة نسيي سيدان كلمة قابن أو وصول جيدنا بإذن الله الكريم. كلمة قابن عنوان كده ومسدرسي قابن عنوان كسوحو نقول دونا السحر المتعدي. السحر المتعدي وحالي هذا السحر كأوقفك سحر كأدي وكوجرو دتك كلا ساميناي. marka saameynta oo qofka uu saameynayo laba nooc ayuu u kala baxaa waxaa jira mid oo maaragtay sixir saameyn ah oo guud oo caam ah iyo mid oo gaar ah oo khaas ah. Marka insha Allah taas labadan qayb ayaan insha Allah ku dadaalina inaan meeshan aan ku sharaxno insha Allah sida loo fahmo. السحر المتعدي waxa waaye waa sixir oo adiga qof kale oo adiga kula degan ha noqdo mise qof ka dheer ha noqdo oo sixirkaasi saameynayo. Marka misaal ahaan sida wixii oo clear oo waadax oo noogu noqdo waxa aad ku fahmaysaa yani مثلا qof aan rabay gabar aragtay inay guursato mise wiil wuxuu rabaa inuu maaragtay ma sha Allah xaas yeesho. waxaad arkaysaa qofkaasi sixirkiisi inuu yahay inuu ahaa مثلا ka soo qaad sixir oo maaragtay sixir ta'til. سحر تعطيل وحلي هذا سحر كهر استاجا هذا كور درس أيام كسميني أو وحولي بأو ماركتي هدو أها وحاجر السحر ذا واكلين سحر أو جور سحر نقالة سحر وحبرش أيا كلا جرا مثلا وحنكسو قادر إنها تجور كأوكله خوف كان وحور بينه جور صدو لكن مرة اللي بماركتي أو جور كأو قدقاقه وحو أركاي وحي إنه فشل معي يعني مثلا qofkii markuu uu cilaaqo la bilaabo مثلا gabadha la siiyay gabadhii maaragtay cidiyo ka doontay si tariiqad xalaal ayuu u maray wuxuu ku jiraa diyaarintii uu ku jiraa wixii inuu diyaariyo rabaa iyadoo processkaas oo socdo arintaas asoo ku jiro waxaad arkaysaa qofkii maaragtay wixii inuu maaragtay oo ka fashilmaayo. مثلا gabadhii ayuu la kulmayaa gabadhii waxay dareemaysaa yani maaragtay xoogaa yar waxay dareemaysaa inay qofkaan maaragtay cariiri ay dhinaciisa ka dareemaysaa maalmihii horan waxaad arkaysaa inay cilaaqadooda aad u fiicneed oo isfahamkooda uu fiicnaa markuu arinta ay soo dhawaatay guurka uu soo dhawaaday waxaad arkaysaa labadii qof maaragtay dagaalkooda badanaa isfahamkooda ayaa badanaa isfaham daradooda ayaa badanayso. ninkan waxaad arkaysaa dhinaca dhaqaalaha laga soo galayaa wixii horumar uma gaarayo yani مشاكل بدن ولا كل مايا ديارنتي وحي أيو دبات حوق لكلا كل مايا مرك وحياة صورنا أيو اسكو أركايا مرك شيراك وحوكر على عسينا يا أوليها هذه وقفتان ما أنت باللاضي وأنت أدبق الشيء ما رتي وحول بمشاكل أو كويمين دباتك كما بحين مرك واحد وحوس ليها مرك قفتان ما رتي قف أو ما رت خير وجرو إنسان أهين أيو أيا لقد على عسينا يا qoftaana sidaas ay maaragtay ninkii ay ku seegaysaa oo waxaad arkaysaa gabadha badan xataa sheeganayo inaysan maaragtay dhinaca guurka dib weyn ka haysto waxaad leedahay sheekho 5 nin 10 nin 15 nin ayaa isoo doontay oo maaragtay markii arinteena meel fiican ay marayso oo guurka uu soo dhawaado oo wax waliba oo kii uu yahay waxaad arkaysaa khilaaf waxaan macno lahayn ayaa maaragtay aan ku kala tagaynaa oo wixii masuurto guul lagama gaarayo. sixirkan waa sixir caam ah. marka sixirkan waxaa la yiraahdaa waa sixir caam ah qoftaas ayaa uu caam u yahay oo qof waliba u yimaado qofkoo raba ahaado sixirkaas uu saameynayaa. marka ma aha qof oo loogu talagalay baad qofkaas hadeerat inay guursato inuu dhibaato ka gaarayo ma aha waa nin waliba u yimaado waa caam qof waliba u yimaado waxay arkaysaa inaysan horumar ay ka gaaraynin oo wixii maaragtay ay ku fashilmayso. waxaad arkaysaa sanad yani qof waxaad arkaysaa 30 jir ah ilaa ay hadda oo gabar ah ilaa ay haddana ma oga miskiinta dhibka hayo sixirka nooca waxa hayo ilaa hadda ma ogo. marka dad badan ayaa jira oo sidaas ah ilaa hadda dhibkooda aysan ogeyn. marka taasi waa sixir caam ah oo qoftaas u gaar ah qofkii u yimaado horumar kama gaarayo xanuunay dareemaysaa xanaaqay dareemaysaa markii arinta guurka ay soo dhawaato dabeecadeedu isbedelaysaa dadka guriga jooga xataa way dhibsanayaan waxyaalo badan ayaad ku arkaysaa qoftaan aysan lahayn. laakiin haddii oo guur uusan jirin oo qof uusan soo doonanin
oo nolosheeda caadi ay tahay waxaad arkaysa wax dhibaato kuma arkaysid xanuun male xanaaq male wax male ilaa waqti الزواج waqtiga guurka uu soo dhawaado mise guur ay rabto inay guursato waxaad arkaysaa qoftii jirooyin ku soo baxaayo hurdo la'aan ku dhacayso waxaad arkaysaa cunto ma cuni karto appetite-ka ka xumaanayo calaamooyinka oo sixirka oo dhan ayaa banaanka imaanaya marka insha Allah qofka markuu saas oo kale u yahay waa inuu ogaadaa maaragtay u baaraa in arinta yani wax inuu qaldan yahay there is something wrong kan kalena waxa waa as-sihr al-khaas sixir al-khaas kan waa mid oo adag aadi oo adag waa sixir al-khaasna waxa waaye waa mid loogu talagalay laba qof in la kala geeyo ayaa loogu talagalay مثال ahaan waxaan u soo qaadanaynaa yani laba qof maanta ma sha Allah way isqabaan oo isla degan yihiin caruur ay isku dhaleen waxa la rabaa labadan qof inay kala tagaan marka laba nooc ayaa lagu sameeyaa dadkaasi yani sixir at-taklif ayaa lagu sameeyaa waxa la yiraahdaa sixir at-taklif waa jinni ayaa loo dirayaa awalan horta sixirka maaragtay ayaa jirkeeda la gelinaya jinni ayaa loo dirayaa jinniga ayaa maaragtay sidii ayuu wuxuu ku sameynayaa qoftii dabeecadeed ayuu bedelayaa naxeeb ayay dareemaysaa dhinaca ninkeeda marka jinniga wixii oo dhan oo qasaya sidii oo maaragtay shaqada loo soo diri in ku hergasho sidii maaragtay ayuu buuq ku kicinayaa guriga ninka wuxuu leeyahay sheekhu aniga 10 sano 20 sano qoftaan isqabnaa dabeecadan kuma arki jirin way ii fiicneed ma aqaan ilaa hadda waxa bedelay dib weyn ayaa iga soo gaaray marka sidii ayuu maaragtay sabarkiisa ayaa yaraanayo marka wixii uu ka badbato sidii ayay ku kala tagayaan sixirka nooca kalena waxa waaye waa mid oo maaragtay oo يعني طريقة labaad oo qoftan oo sixirka oo jirkeedu ku soo galay waxa waaye waa sixir maaragtay oo iyada loo dhigo oo jinni la'aan uu yahay kan jinni lama socdo laakiin shaydaanka ayaa sixirka u dhigayo sixirka markuu jirkeeda galo sixir mutaaddi ayuu noqonayaa ninkan markuu maaragtay naagtiisa u tago maaragtay sidii ayuu sixirka asagana jirkiisa ku galaya marka waxa waaye both side labadooda way sixran yihiin dagaalkooda ma dhamaanayo waxaad arkaysaa qoftii marata inay ninkeeda ag jiifato qolka fadhiga iska jiifanaysa meelahaas ay u dhaxaysaa ilmaha agtooda iska jiifanaysaa ninka xuquuqdiisa meel loogu dhacaya marka dagaalkooda waa badanaya sidii ayuu sixirka maaragtay dhibka jirana waxa waaye sixirka noocaani xataa maaragtay cilaaj haddii la dhaho waxaad arkaysaa ninkii inuu cilaajka ka soo horjeedo ninkeeda waxaad arkaysaa inuu cilaajka ka soo horjeedo oo mar waliba wadaad arrintiisa markii la soo qaado mise qur'aan saarid ha noqoto mise cilaaj ha noqdo waxaad arkaysaa ninkeeda inuu maaragtay waxaan ka soo horjeedo lianno sixirka jirkiisa ku jiro ayaa u diidayo in any oo maaragtay wax waliba oo ayaga maaragtay dantooda ku jira inay sameeyaan waxay ku soo wacaysaa waxay ku leedahay sheekhow aniga maaragtay cilaajka waan rabaa laakiin ninkayga ma ogolo wuxuu leeyahay qur'aan adaa is saari karo qur'aan anaa ku saari karo anigana xaalkayga ilaa hadda wax isbedeli ma leh wadaadkii sidii ayuu dhib ay ku noqonaysaa oo guriga oo maaragtay dhib ayay ku noqonaysaa guriga siduu ku soo galo oo qur'aan uu ku saaro maadaama abulbayt sayidka guriga uu ogoleen in oo maaragtay xaaskiisa iyo asaga naftiisaba qur'aan la saaro marka sidaas ayay qoftaan maaragtay ay ku baaba'aysaa ay rafaad ay kala kulmaysaa waxayna u dambeynaysaa inay maaragtay idin iyo ninkeeda saas ay ku kala tagaan laanna wixii wax badan haddii la sabro waxaad arkaysaa labadii qof maaragtay inaysan iswadi karin oo sidaas ayaa ilmaha ku baaba'ayo oo ilmihii maaragtay marka sixirkan oo maaragtay loo soo diray oo noocan ah oo sixir al-khaaska ah waa sixir joogaya aan dhaqaaqaynin waa markii qofta ay ninkeeda ay kala tagaan waxaa la isku dirayaa ayada iyo ilmaheeda ayaa la isku dirayaa ayada iyo ilmaheeda waxaa la dooranayaa markuu ninka banaanka uu baxo oo naagti ay kala tagaan ilmaha midka ugu jeceshahay ayaa haddana lagu diraya waa wax oo soconaya wax istaagaya ma aha ilmaha midka ay ugu jeceshahay lagu diraya ilmihii waxay noqonayaan ilmo oo maaragtay hadal aan maqlaynin guriga buuqis ma dhamaanayo guriga waxaa dhici karta xataa ilmaha inay guriga ay one by one aga tagaan ee guriga dhan ay ka guuraan dagaalkii iyo buuqa laanna ilmihii waxa waaye raaxad iyo xasiloona ayay guriga ka waynayaan hooyadii markii ilmaha ay saas ugu tagtay wixii soo harana maaragtay waxaad arkaysaa inaysan fiicnaan ilmo fiican aysan ahayn hooyadii jirro ayay galaysaa marka jirro ayay isku bedelaysaa maadaama meesha nin uusan joogin
caruurtana saas oo loo baabi'iyey sixran marad ayuu isku bedelayaa qoftu waxay arkaysaa jirar kama baxaysa isbitaal to isbitaal ayay aadaysaa sokoraa ku dhacaysa kolestarool wax waliba jiro nooc waliba ayaa maaragtay ayaa lagu sameynayaa waxaad arkaysaa yani qofti xataa markay nin kale ay guursato isku dayda nin kale guursanaysaa ninka sidii haddana ayay ku kala tagaysaan waxaan aragnay gabar oo maaragtay oo 8 nin soo guursatay 8 nin ayay soo guursatay oo waxaad arkaysaa gurigii waxaa degan intaasoo caruur ayaa degan oo kala aaba ah marka waxaan waa wax oo aad iyo aad khatar u ah oo wax soconaya waayo qoftan mar walba nin markay guursato waxaa la isku dayayaa ninka inay ay kala tagaan marka sixir almutaaddi waa sixir oo qof kale u gudbaayo oo qofkaasna saameynayo waxaa dhici karta qofkaas inuu short time uu saameeyo waxaa dhici karta inuu long time inuu saameeyo oo waqti dheer oo ka qaadato oo qofkaas maaragtay oo cilaaj u baahan yahay xataa ninkii inaagta markay kala tagaan waxaa la rabaa ninkaas xataa inuu maaragtay isdaaweeyo oo cilaaj uu maro oo maaragtay wixii sidii jirkiisa aga bixi lahay maadaama maaragtay oo wixii jirkiisa soo galay marka insha Allah darsigeena gaaban saas ayaan ku soo dhameyneynaa marka insha Allah qofkii inuu iska baaro waaye laana marka qaarkood ishana way keentaa waxaad arkaysaa qofka maaragtay oo isha ku dhacday in oo maaragtay asagii iyo xaaskiisa aysan isfahmaynin dad badanaa jira oo maanta yani maasha Allah tabaarak Allah aan ku dhayn hadday arkaan laba qof isjecel oo maaragtay ilmahooda korsanaayo oo maaragtay oo life oo maaragtay oo saciida life oo happiness ay ku nool yihiin hadday arkaan dadkan waxa waaye waa isha ayay kugu dhufanayaan sidaas ayaa waxaad arkaysaa familygaaga oo ku baaba'aa isfaham darro ayaa ka dhacaysa dagaalka ma dhamaanayo marka waa qofku waa duruusteena oo fiirsadaa oo isbaaraa waxaan maxaa keenay ilmaa keentay mise sixir maa keenay marka inuu iska baaro oo isfiiriyo waa calaamooyinka sixirta waan sheegnay calaamooyinka isha waan sheegnay marka inuu arrintan si fiican u darso oo fiiriyo waa hadduusan waxaan jirinna waxaa dhici kartaa inuu u sabab yahay albucd can illah qofka markuu ilaahay subxaanahu watacaala uu jidkiis ka dheeraado oo ilaahay subxaanahu watacaala dhabarka aadiyo waxaad arkaysaa xayaatadiisa maaragtay noloshiisa inay maaragtay waxa ay tahay nolol aad iyo aad u adag waman acrada can dikri fa ina lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acma qof waliba ilaahay subxaanahu watacaala jidkiis ka dheeraado gaal iyo muslim wuxuu raba ahaado waxa waa nolol uma tal ninka gaalku waaba loo jeedaa inay nolol u haysanin ninka muslimka waxa waaye aad iyo aad ay maaragtay waxaan u saameynaysaa noloshiis waxa waaye baraka ma leh dagaalka ma dhamaanay buuq ma dhamaanay gurigiis wuxuu noqonayaa guri oo fusq ah iyo fujuur ka jiro oo ilaahay subxaanahu watacaala dikriga ilaahay subxaanahu watacaala ku yar marka waxaad arkaysaa dadkii inay maaragtay ilmihii saas ay ku baaba'ayaan hooyadii saas ay ku baaba'aysaa aabihii saas ayuu guriga aga tagayaa لأنه إلهي سبحانه وتعالى رالك معها marka wax waliba aad kugu dhaco ilma aha wax waliba kugu dhaco aan sixirna ma aha waa ina isbaarta oo isfiirsa waxa ka halaysan wax noloshaada ka qaldan marka waa ina sidii aad ku dadaashaa sida aad ma aragti waxaan aad ku xal aad ugu raadin lahayd insha Allah إلهي سبحانه وتعالى أجر حسنات أنا أغسي كلمة أنا أنسو جيدني إلهي سبحانه وتعالى قبر جيرها نوغو نوريو wax su'aalna aad qabtaan insha Allah waana soo weydiin kartaan insha Allah telefoonkeyga waa ku qoran yahay meesha numberkeyga waan soo qorayaa WhatsApp ha noqdo oo Viber ha noqdo insha Allah waa igala soo xiriiri kartiin waxaan rabnaa insha Allah inaad noo soo duceysaan Ilaahay inuu subxaanahu wa ta'ala qabrigeena noo nuuriyo inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala kelmadan aan soo jeedino oo ka dhigo mid oo ma aragtay khaalisan liwajhi Allah Ilaahay subxaanahu wa ta'ala dartiis uu yahay oo qof kale ma aragtay la nuriidu minkum jazaa'an wala shukura جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته